Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada kanaalka Daruuraha. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa taalo u qaab ekeyd sida laba kalluun oo cirka u boodaya oo dhowaan laga dhisay magaalo ku taalla waddanka Morocco oo ay dadka deegaanku ku xanaaqeen kadibna gebigeed ay burburiyeen iyagoo markaa hal bacaad lagu lisay ka dhigay hawshii dowladooda hoose ee kharashka iyo waqtiga faraha badan ku bixisay. Inta aan gudagelin warbixintan, fadlan haddii aadan horay like u saarin boggeena Facebook, haatan saar. Sidoo kale subscribe-na sii barteena youtube.com/daruuraha. Dadka deegaanka magaalo xeebeedka Mehdiya ee waddanka Morocco ayaa aad uga soo horjeestay taalo loo qaab ekeeyey sida laba kalluun oo cirka u boodaya oo dhowaan magaaladaasi laga taagay, waxaana ay dadku bilaabeen inay burburiyaan labadaasi taalo, iyagoo sheegay in kalluunkani uu u qaab eg yahay xubinta taranka ragga. Waxay kaloo dadka magaaladu ay cambaareeyeen go'aankii ay dowladda hoose ku dhistay taalooyinkan iyo kharashkii ku baxay oo ay sheegeen inay habbooneed in dhaqaalahaasi waxyaabo kale lagu qabsado. Mid ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada oo u warramayay Morocco World News ayaa waxa uu yidhi, shacabka ku nool deegaanka Kenitra iyo Mehdiya waxay dalbadeen in magaaladooda dib u habeen lagu sameeyo, waxaana maamulka magaaladu ay u keeneen labadan taalo ee macnahooda la garan waayey. Waxaa kaloo ay wararku sheegayaan in dadka deegaanku ay muddaba dalbanayeen in laga qaado labadan taalo ee kalluunka u eg oo ay fahmi waayeen ulajeedada loo taagay markii horeba. Baraha bulshada reer Morocco ayaa waxay dadku isweydiinayaan sababta markii horeba taalo caynkan ah kharash loo geliyey, halka qaar kalena ay sheegayeen in arrintan ay ka soo maaxatay ninka qalbi carruurka ah ee sanadkii hore loo magacaabay guddoomiyaha golaha deegaanka Mehdiya ee Cabdiraxiim Buuraas. Weli lama shaacin magaca rasmiga ah ee taalooyinkan loo yaqaanay, kuwaas oo haatan la burburiyey oo aanan ku oolin halkii markii hore laga dhisay. Dalalka Afrika iyo Asia oo ah kuwo dhaqamo iyo diimo kala duwan haysta ayaa inta badan ka duwan dalalka horumaray marka ay timaado aqbalidda fikradaha khiyaaliga ah iyo taalooyinka aan mararka qaar macnaha ku dhisnayn, balse loola jeedo mid lagu muujinayo oo keliya fan ama arts uu soo bandhigay shakhsi gaar ah oo kadibna ay hawshiisaasi ku qadariyaan. Haddaba, asxaabteenna aadka noola socota, maxay idinla muuqataa taalooyinkan la burburiyey? Ma laba kalluun oo caadi ahba, mise waxaad ku raacsan tahay dadka magaalada Mehdiya inay dubbe u qaataan oo ay gebigeed dhulka soo dhigaan? Inkastoo dulqaadku uu wanaagsan yahay, haddana dadka ku nool waddanka Morocco ayaanan u baahnayn fikrado khiyaali ah oo waxay intooda badan ay ku nool yihiin nolol aad u adag, kuwaas oo u baahan in wax laga qabto noloshaasi adag ee ay ku nool yihiin. Daruuraha.